soo dhawaada khiyaarta waxaan necbaa dhammaan nolosheedii oo dhan hooyaday laakiin xaqiiqada waa ay ka duwaneed sidii aan u haystay magacaygu waa Iima tanina waa sheekadeeda hooyaday waxa ay iga tagtay aabahay markay da'deedu ahayd 6 sano waxa ay ka tagtay guriga aabahayna waxa ay ka raacday nin kale dibna uguma soo laabanin aabahay waxa uu ahaa mid aad iigu qayliya waqti kasta aad ayuu ii necbaa sababtoo ah hooyaday ayaa ka tagtay wuxuuna ku caro baabi'i jiray aniga sababtoo ah waxaan aad ugu ekaa hooyaday wuxuu waqtiga socdaba anigu waxaan gaaray daadii iskuulka waxaan kala kulmay caqabad weyn ciyaalku waxa ay ahaayeen kuwa ibahdila sababtoo ah ma aysan jirin hooyo isoo booqanaysa waxayna oranayeen hooyadeed waa ay ka tagtay daadeedu markay ay gaartay 13 sano waxaan ahaa mid guriga iskaga cidloonaysa inta badanna kaligeed mashquulsan ciil iyo carana la nool aabahay waxa uu guursaday mar kaleeto waxa uu guursaday naag kale oo eedo ii ah waxaan nacay sida aan aabahay u nacay ka daran ayaan eedaday u nacay sababtoo ah waxay ahayd mid aad iigu shaqaysa guriga dhanna igu nadiifisa mararka qaarna waxa ay iga tagi jireen labadooda aniga oo kali ah waxaan dareemi jiray inaysan jirin qof jecel dunida oo ku nool waxaan bilaabay inaan naco hooyaday weliba si saa'id ah inaan u naco sababtoo ah wax walba waxa ay igu dhacaayeen ayada sababteeda waxaan kaliya isla sheekaysto maadaama aan ahaa qof cidla ah waxaan siri haddii hooyada kula joogi lahayd waxaan kuguma dhici lahayn oo tan waxa kugu wacan ayada waxaan niyadda ku qabsaday in aan mar ayada la kulmo si aan u sheego inaan si saa'id ah aan u nacabahay daadeedu waa ay weynaatay waxaana gaaray 19 sano waxaana ku biiray jaamacad maalmaha ka mid ah aniga oo shaqo wada waxa iga jabay laptopkaygii maadaama la isoo diray shaqo guri waxaan bilaabay inaan qaato laptopka aabahay si aan ugu diyaarsado waxyaabihii liiga rabay laakiin si kadis ah ma lama filaan ah ayaa waxaan ku furay emailada aabahay waxaana ogaaday wax walba oo ku saabsan hooyaday kumanaan jeer ayaa waxa u soo dirtay email aabahay si uu la kulansiiyo gabadhiisa laakiin aabahay wuxuu ahaa markasta mid ka diida waa ay barisay aabahay si uu ugu ogolaado la kulanka gabadheeda aabahay waxa uu ahaa mid markasta ka ilaaliya in ay aniga ila kulanto anigana hooyaday emailkeeda ayaan qaatay waana la xiriiray waxaana hooyaday kula kulmay si qarsoodi ah isla markii aan la kulmay hooyaday waxaa soo baxday xaqiiqada ku saabsan aabahay oo ahaa in uu been ii sheegayay hooyadayna waxa ay ka raacday nin kale sababtoo ah asaga ayaa ku qasbay markastana waxa uu ahaa mid bahdila hooyadayna ma aysan ahayn mid khiyaano badan waa uu garaaci jiray waa uu adkaysan weysay ilaa markii dambe uu ku qasbo in ay guriga ka tagto sidaas ayay samaysay gurigana waa ay ka tagtay hooyaday kama aysan tagi lahayn aabahay laakiin dhibaatada waxa ay ka timid dhanka aabahay hooyaday igama tagin waxa sabab u ahaa laakiin aabahay dhowr mar waxa ay isku dayday in ay la soo xiriirto asaga si uu ila kulansiiyo laakiin markasta waa uu cudur daaray jiray wuuna u diidi jiray inay gabadheeda la kulanto markasta waxa ay rabtay inay gabadheeda aragto laakiin aabahay waxa uu ku guuleystay in uu iga fogeeyo ayada sidaa daraadeed hooyaday waa iska tagtay nolol ayayna dhisatay hadda waxaan ka tagay aabahay waxaana la noolaa hooyaday nolol farxad leh ayaan kula noolahay hooyaday ninka guursaday waa nin aad u wanaagsan wuxuuna ii jecel yahay sida ilmihiisa oo kaleeto aabahay ma ahayn qof wanaagsan sidaa daraadeed wax walba waan fahmay oo ku saabsan hooyaday iyo inay ka tagto aabahay sidaa daraadeed waxaan meeshaas ku gooyay nolosha aabahay waxaana hadda la noolahaa hooyaday si farxad leh